بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم walaalahey meel kasta aad joogtaan isku soo noqod xiisa leh iyo maask maasha allah tabaaraka allah. walaalahey waxaan idinka codsanayaa fiidiyowga hadduu idin soo gaaro insha allah idinkoo mahadsan inaad like saartid subscribe na aad saartid aadna share garaysid kambalelkana furo fiidiyo kastoo cusub oon soo dhigo idin soo gaaro isku soo noqod wacan oo qeyr qaba insha allah. waxaa meesha kusoo shiitay waa xolbo maasha allah. waxaa la wadaa maask wejiga bucbuc kaaga dhigi doono nadiifna kaaga dhigi doono maasha allah tabaarakallah kuna taagi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo. alaabaha meesha ku haystan waa dabiici boqolkiiba boqol waana ka faa-iidi doontaan hadduu ilaahay yiraahdo insha allah. waxaan soo shiiday xolbadiisa hor aragteen xulbadana markasta inay fresh kuu tahay ama waxyaabaha aad isticmaalaysid haddaa rabto natiijo inaad ka hesho iyagoo maaragta fresh ah inaad use garaysid fiican hadduu ilaahay yiraahdo insha allah tabaarakallah. walaalahey waxaan meesha ku haystaa waa 3 shay hadduu ilaahay raalli ka noqdo. waxaan meesha kusoo shubtay hal qaando oo ah shumburo ama maaragtay maxaa la dhihi jiray xumbuska. waxaan kaloo kusoo shubtay hal qaando oo dilka suudaani anaa guriga ku sameeyey insha allah. fiidiyogeedana youtube-ku ku jira waa soo daawan kartaa waa iska basiid waaye simple waaye. waxaan kaleeto meesha ku shubaya waa xulbo 3 shay meesha kasta waa xulbo waa shumburo allaha mustacaan iyo maaragtay dilka oo maaragtay guriga anaa kusoo sameeyey oo maaragtay burkeedana meelaha kulley waa lagu gadaa kulley waxyaabo iska dabiici ah waaye oo guriga aad ku samaysan kartid oo iska easy ah hadduu ilaahay yiraahdo. 3 shay meesha ku haystaa wejigana maasha allah tabaarakallah kaaga dhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. nafaqo oo cajiib ah waaye waa ka faa-iidi doontaa wejigaadan waxaa isleeda maasha allah tabaarakallah maxaa lagu dhaqay aan ku dhahay maaragtay wax special ma lagu dhaqan nadiif kuu noqonaa clean kaaga dhiga dad skinkan wuu kaa qaadi doonaa insha allah. broobey waa ka warkeeni doontaan hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan ku qasaayana waa caanaha oo maaragtay oo biyaha ah hadduu ilaahay yiraahdo. haddaa rabtid biyo waa ku qasan kartaa laakiin moor nafaqa haddaa rabtid iyo wejiga maasha allah inuu kuu noqdo iyo gacnaha iyo lugaha iyo korka dhanba waa marsan kartaa insha allah. caano aa isticmaalaysaa hadda caano haysanin garoor waa isticmaali kartaa garoorka oo maaragta maasha allah tabaarakallah oo faleefarka aan lahayn oo plan yogurt waa isticmaali kartaa insha allah. marka asxaabta waa inaad si fiican u qastaa hadda alaabtan isku dartid oo maaragta iyada dhan ay israacda hadduu ilaahay yiraahdo smooth uu noqdaa sida creamkii oo kaleeta la rabaa inuu paste noqdo. caanahan hal mar kuma wada shubaysid tartiib aa ugu daraaya insha allah ilaa sida aan rabay uu ka noqdo hadduu ilaahay raalli ka noqdo. marka maasha allah tabaarakallah xulbadana waa ogtihiin fawaaidkay leedahay dilkadana maaragtay waxyaabo mukhtalifa oo isku daray waaye oo maasha allah tabaarakallah ah wejiga iyadana nadiif kaaga dhigaysa ku kalin garaynaysaa hadduu ilaahay yiraahdo. nabcadaa leedahay maaskan wuu ku anfacayaa xatee haddii wejiga nafro aa ku leedahay wejiga hadduu dry kaa yahay maasha allah tabaarakallah. nafraha markuu wejiga dry noqdo xatee nafro way kasoo baxaan because skinka nafaqan dhan ma haysto qofkii maaragta rash camala uga soo baxaya wejigiyaa ka gaduudanaya wuu cuncunaya markaas kadibna nafraha way imaanayaan bes maaha nafraha kama soo baxo only wejiga oo oyalka leh saan wada ognahay. marka maasha allah tabaarakallah maaskan waa ka wada faa-iidi doontaan baroobeeye hadduu ilaahay yiraahdo. wejigaada aad iyo aad hadduu u qalalan yahay saliida ku darsane oo vitamin E oo vitamin C hadduu ilaahay yiraahdo haddaa haysatid haddii kaleetana waxaa isticmaali kartaa ay oil aa haysatid hadduu ilaahay raalli ka noqdo. aniga waxaan isticmaalaya insha allah ka iskugu qasay kadib waxaan ku dari doonaa hadduu ilaahay yiraahdo saliidan ku daraayana waa saliid oo olive oil aan ku daraaya insha allah. wejiga maasha allah tabaarakallah weji taagan oo nafaqaysan oo maasha allah tabaarakallah kuu noqonaa oo nadiif ah wejiga cayilina ma ku dhahaayay ma aqaano wixii oo la cuno kolley weji cayilka waa loo kala dhashaa laakiin haddii wejiga la nafaqeeyo oo la taago maasha allah tabaarakallah wuu qurxanaanayaa hadduu ilaahay yiraahdo.
marka waa kaasaa walaalahay ka faa'iidaysta maaskeena saasuu diyaar almost ku yahay. markasta waxaa fiican marka wax aad samaysanaysid waxyaaba dabiici ah boqolkiiba boqol inaa maaragtay jirkaada marisi amba wejigaada cadaan lacag laga soo bixiyo 2 maalmood ah oo allergy ah ka qaadi kartid oo skinka uu kaa dhamaanayo oo maaragtay badan kuu keenaya jiro. marka yaa la fiirin wixii loo dhasho wax ka fiican male intaa ilaahay ku siiyey alxamdulilah dheh. waxaan ku dhahay wax aan kalifaad maaragtay healthigaada iyo maaragtay iyo lacagtaadaba aan gelinaynin insha allah ka faa'iidayso oo marso alaabaha dabiiciga insha allah gabarey. intaasna waa iska maaragtay nasiixa yar qofkii rabaa qaadanayo anfacdo qofkii kaleetana wuxuu isaga rabo samaysanaa. laakiin walaalahay waxaan la jeclaa waxaa naftaada la jecesha walaalkaa la jeclaa waa layiri. marka waa kaasa walaalahay maasha allah videogan wallahi saar adikoo mahadsan sheer gareeyana jasaakumullahu khayra idin leh daawashada daawateen waa ku mahadsantihiin sidaan iyo markale aan ku kulmayna video cusub walaalahay waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillaah asalaamu calaykum.